بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آديات بدو مهتنتهين وارباهين تقرن كجمهورية الصومالي الآن inaad waxa weey maanta aad ka soo qayb gashaan kelmadaha kooban ayaan ka oran doono hadal uu shalay jeediyay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan oo shalay ka hadlay hadal badan oo aad iyo aad isku dhaxyaalay oo aan nidaamsanayn oo aan nuxur lahayn oo runtii aanu aragno inuu Cabdiraxmaan maadaama maalmaha soo socda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loo dabaal degayo sanad guuradii 31aad ee ka soo wareegtay madax banaanida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii uu la soo noqday 1991kii 18 May magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco marka oo horeysa waan u sii qadimayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland farxadda iyo reereynta dabaaldega sugaya waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu ku gaarsiiyo nabad qab caafimaad qab iyo nabadgeliyo waarta ilaahay idankii Cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay dhowr arrimood marka oo horeysa horta waxaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa iyagoo ka dharagsan sidii caadada u ahayd Cabdiraxmaan waxa uu shirka jaraa'id u qabtay inuu dadka ka leexiyo inuu ka baxsanayo dabaaldega 31 guurada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May taa horta shacbigu way ka warqabaan waxana aad iyo aad u muhiima inuu Cabdiraxmaan shacbigiisa qarannimada u dabaaldegaya inuu waxa weey la dareen noqdo oo la dabaaldego iyadoo ugu mahadnaqayno in warbaahintuna shalay ay weydiisay inuu ka qayb galayo si cadna wuxuu sheegay inaanu ka qayb galaynin waana caadooyinkiisii soo taxnaa waxa weey awalba lagu yaqaanay marka ka baxsad uu ka baxsanay 18 May ayay hay jirkiisa jaraa'id isaga oo ka dhigayay inuu qodobo muhiim ah oo dalkiisa dadka u dana inuu ka hadlayo kamana hadal arinta aatri waxa qorshaysan muddo kordhin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu qorshaysan doorashooyin waqtigoodu ku dhacaya oo ugu horeyso doorashadii ururada iyo axsaabta oo waqtigoodu qaanuuniga ahaa uu foodo inagu soo hayo hay-adihii ku shuqulka lahaana ay dhawaan soo saari doonaan waajibaadkoodii dastuuriga ahaa hay-ad kastaana ay qaadan doonto xilkii kaga aadanaa doorashooyinka ururada iyo axsaabta saddexda xisbi qaran ee soo baxa haddii ilaahay yiraahdo ee ku soo baxa doorashadaasi ee shahaado hela 10 sano ah ayaana u tartami doona doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland taana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii dhaweytana uu cadeeyay doorashooyinkuna way qabsoomayaan sida uu kala horeeyaan bayna ku qabsoomayaan ta madaxtooyadana waxa galaya saddexda xisbi qaran ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland 10 sano soo socota liisa shahaado u hela ee nasiib siiyo ayaa ka qayb gali doona taasina waa biyo kama dhibcaan madaxda ururada iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku diyaariyay masiirka taariikhiga ah ee waajibaadka ee dastuurka jamhuuriyadda iyo xeerasha ka farcama u damaanad qaadeen inay ka faa'iideystaan ee isku diyaariyayna waan hambalyeynayna tartan waxaan hayno meeshaasi yaalaana ma jirto qodobka kale ee Cabdiraxmaan ka hadlay waxa weeye inuu yiri ma aqoonsani 13 November wixii ka dambeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loogu qoslo weeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu madaxweyne ku yahay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka ayaana aqoonsi siiyay maalinta aqoonsiga dastuurku siiyay waxa weey la gaaro oo ah in madaxweyne xilka kala wareego ayay noqonaysaa in dastuurku waxa weey aqoonsigiisii dastuurka uu ku helay ay halkaas kaga eegta laakiinse madaxweynuhu aqoonsi shakhsiya oo adiga ah iyo kuwa ee waxa weey kula joogjoogaba madaxweynuhu kuma aha madaxweyne wuxuu ku yahay dastuurkii ku siiyay 12 sano inaad hogaamiso golaha wakiilada iyadoo 5 sano muddaxilaadkaagu ahaa 7 sano ka dambeeyay
dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo hay-adihii awoodda uu u siiyey inaad xilkaasi sii hayso oo golahaasi aad sii hogaamiso awoodda u siiyey ayaa madaxweynahana u siin doona waxa weeye wixii waajibaad dastuuriya ee ka ratima markaasi ay timaado nin suuqa joogaana kama taliyo xisbina kama taliyo waxaa ka taliya hay-ado dastuuriya uu dastuurku waajibiyey marka ay waxa weeye waajibaadkaygaasi yimaado cidda xil gudanaysa aqoonsi shakhsiyadeedna madaxweynuhu kaagama baahna mid xisbiyeedna cid ugama baahna waa dastuuri weeyi dastuurka dalkan ayaana lagu kala soconaya taasina waa taas weeyi laakiinse dee waxa weeye uun habatacii iyo catow magansado waa caadadiisii uun baan u aragnaa runtii hadalladaasi kaa soo yeedhayay arrinta kale ee maanta aan dul istaagaya waxa weeye qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu maanta marayaa meel wanaagsan waxa uu marayaa meel maanta midnimo u baahan in lagaga gudbo waxyaalaad badan oo jira dalkan maanta waxa uu ku badbaaday waa xukuumadihii kala dambeeyey oo dalkan hogaaminayey oo mid kastaaba uu dalkan soo gaadhsiiyey qarannimadiisa uu u dhaartay inuu gaadhsiiyo ummadda jamhuuriyadda somalilan iyo himiladeeda maantana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdiye xukuumaddiisa iyo golayaasha qaranku waxay dhammaantood waxa weeye hal mid ay ka yihiin waa difaaca dalkan iyo madax bannaanida qaranka jamhuuriyadda somalilan waana ta aad ka baaqsanaysa mar walba in aad waxa weeye ka fakato maalin keli haatana hal eray oo dalkan difaaciisa iyo wadajirkiisa iyo qarannimadiisa aanad hal maalinna waxa weeye waxba u odhanin waa caddaan kuwa waxa weeye sawirrada lala soo galayo waxa weeye qarannimada somalilan waxa weeye ka dhanka ah difaaca dalkan waxa weeye maalin walba laga difaacayo hadday qalin iyo qowl iyo tahayba difaac xuduudeedba kuwa ku faraxsan maalin walba sawirrada kula soo galaya nairobi iyo dowladaha jaarkaana waxaanu leenahay war kuwii horeba magac xumo waxaan ahayn oo ay adduunka kala hoydeen ma jirto difaaca dalkiina iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan ummaddiina kala dareen noqda dalkanna ilaahay iyo ummaddiisa oo gacmaha isku haysta ayaa difaacaya iyaga oo ku kalsoon madaxdooda iyo dowladnimadooda iyo dalkooga nin allaale iyo nin maanta waxa weeye laga baryayaana ma jirto difaaca dalkanna waxa weeye waa uu sugan yahay hadday tahay kuwo maanta hagardaamaynaya oo maanta kuwa aynu jaarka nahay saaka madaxweynuhu ka hadlayey maanta waxa weeye xamar lagu ilaalinayo hodheelada dhexdooda iska dhigaya inay maanta halkan waxa weeye iyaguna matalaad halkaa ku haystaan kuwana waxaan leenahay war khaatumo seegina dalkiina iyo ummaddiina waxa weeye cafis weydiista aqbala qarannimadiina iyo dowladnimadiina kuwa halkaa ka soo bixi doonana waxaan uga digaynaa inay kuwii hore wixii wakhtigu kaga lumay inaynu kaga lumin jamhuuriyaddan somalilan iyo madax bannaanideeda ay iska iloobaan sidaa dowladaha jaarka aynu walaalo noqonno wax inaga dhexeeyo kale aanu jirin taasaa iyagana aan kula dardaarmi lahaa marka intaasaan ku soo koobaya aad iyo aad baad u mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu